waxaa inoo xiga muxaadarada afraad الشيخ محمد عثمان علسو فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة كلمة دينية هي علماء كهادلين شيخي أن سوغاري إن شاء الله يكوي كهريبة وكفاية وينقف لنته wax badan oo arintaas ku saabsanna kama hadli doono biidin Ilaahi ta'ala. Culamadeena khayr Allah ka jazeeya, kuwa khayrka qalqaaliyeen iyo kuwa kelimada jeediyeen iyo ragga walaalaha oo xuduurka oo maaragtay kelimada khayrka ka soo qayb qaateen dhamaanba khayr Allah ka jazeeya. saddex noqdo yar yar ayaan tataaban doonaa. saddexdaas shay baan hadalka ku soo gaabinaa insha Allah, waana gaabin doonaa hadalka biidin Ilaah. saddexda shay waxa weeye maanta waxaa jirta dacwa oo lisu yeeraya, gaar ahaan haweenkeennii loo yeeraya oo fikir ah taqriib reer galbeedkaas iyo leenkooda iyo dhinacay u socdaan dadka loogu yeerayo. wax yar baan insha allahu tacaala ayaan iskaga baraarujin doonaa. markay noo yeerayeen oo fikirkaas nooga yeerayeen maxay nala rabaan? nicmadaan ku jirno maxay tahay oo ilaahayna siiyey? ma nicmo ay noo wadaan mise nicmadii ilaahayna siiyey bay naga dhex bixin rabaan oo naga qaadi rabaan? ayaga noo yeeraya si dadkooda iyo haweenkooda maxay ku nool yihiin, xaaladda ay ku nool yihiin waa sidee? insha allah inahaasaan yaro dul wareegi doonaa biidni illaahi tacaala xaaladooda. waxaan ognahay dacwooyinka maanta socota boodh weyn baa lagu dhijiyey, magac macaan baa loo bixi, waxaa lagu magacaabahayaa wax la yidhaha xuriya, cadaala, musaawaad, sinaasho, xuquuqda haweenka. waxaana dadka looga yeeraa sooma maanta, waxaana meel walba ku dhegan, waxa hay-ada dhulka jooga fiiri, waxa kulan oo meel walba ka dhacaya fiiri, magacyadan ay ku hoos jiraan. ama magac xuriyat almara ama taxriir almara, naagta inay xurowdo maxay ka xuroobi? wax lagu magacaabaya sinaasho, waxa sinaanaya waa maxay? wax lagu magacaabaya xuquuq almara, xuquuqda naagta ay siin rabaan maxay tahay oo islaamka ka weydi? marka intaan marayin xuquuqda ayaga ay haystaan oo haweenkooda ku nool yihiin maxay tahay? waxaan ognahay ayuha alikhwa, xurriyadda ay nooga yeerayeen sida dhabta ah waa inaan ka xurowna addoonnimadii alla subxaanahu wa tacaala. qofkan allah uumay, asagaana waddo u jeexay, kitaab buu siiyey. ninkii diiday waa diiday, ayaga way diideen. annaga qaadanay ayaa waxay doonayeen inay magac kale leen kale intay noo soo maraan ay noo isticmaalaan. waxay ku magacaabayeen xuriya, waxay naga xoreynayeenna waa addoonnimadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo gabadhaas muslimadda oo xijaabka qabta xijaabkeeda inay ka siibaan oy ka xurowdo. xuquuqdii islaamka siiyey gabdhaha oo hadda culimmadeenna ay ka hadlaysay in la baabi'iyo lagu tunto. waxay dadka ugu yeerayeen wax lagu magacaabo tabaruj oo ilaahay qur-aanku leeyahy walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa. in haweenka intay isqaawiyaan bannaanka u soo baxaan, waxa ka dambeeyana danta laga leeyahay waa dan weyn oon garanayno. wax haweenka in la qaawiyo oo la dhartira oo waajibaadka ilaahay laga xoreeyo ugu bilaabiyo dadka arrintaas ugu yeedhay horta shaydaan baa ugu horreeyay ilaahay siduu qur-aanka noogu sheegay.
shaydaan baa ugu horreeyey. ilaahay qur-aanka markuu ku leeyahy fiirin yaa bani aadama laa yaftinannakum الshayطaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayثu laa tarawnahum. war dadka bani aadanow ibni aadam baa lala hadlaya, xataa mu'miniinta kinax lalama hadlaya. shaydaan yaasan idin fidnaynin. shaydaanka ma ogtahay shayaadiina alinsi waاljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli. shaydaanka jinnina waa leeya, insina waa leeya. shayaadiinta noogala digaya kuwaana ka mid a. shaydaan yaasan idin fidnaynin. aabbayaalkiin aabbihii iyo hooyadiina dhalay ayuu ka soo saaray jannada. waxaasna ka siibay dharkii iyo xijaabka ay qabeen buu ka siibay, ayagoo qaawan ay noqdeen. ayadaha ka horey buu ilaahay nooga soo sheegay subxaanaه wa tacaala dharkii ilaahay u geliyo jannada libaaskeeda ahaayo ilaahay jirkooda ku hagaaji ayaa ka dhacay markay macsiyada galeen iyo dembigii. shaydaankii hore oo shalay jannada aabbi iyo hooyo ka soo saaray way kuwa kan noo yeeraayo oo horta gabdhaheenna u yeeraayo oo xuquuqul mar aan u yeeraynaa dhahayin oo haweenka xornimada ugu yeeraayo. maxay ula jeedaan marka oy gabadha u qaawinayiin oy maaragtay guryaha inay ka soo baxdo oy ragga dhex gasha oy maaragtay balaayo dhex gasha ugu yeerayiin? waxay ugu yeerayiin ahdaaf ujeedooyin bay leeyihiin. ujeedooyinkooda marka koowaad gabadhan lafteeda horta si sahlan inay ku helaan oy waxay rabaan ku sameeyaan. waa hadafyaalka ka mid ah oy akhlaaqdeedii iyo dhowrsanaanteedii iyo diinteedii inay baabi'iyaan, qof aan macno lahayn oo iska khariban inay ka dhigaan. waa shayga koowaad oy gabadha bannaanka usoo tuuraan. oo gabadha marka sharafteedii weyda, xurmadeedii weyda, qiimaheedii weyda, asturkeedii iyo gurigeeda weyda. waxaa kaloo doonayiin islaamka waxaas ilaaliyaa arrimo badan oo insha allah kuwa soo socdaan arki doonaa. jiritaanka usrada iyo qowskan jiritaankiisuu ilaalinayaa. caruur baa joogto, hadday laba qof oo waaweyn meel joogaan caruur yaryaraa joogta. dadka markii laisku celceliya waxaa laga yaabaa dadka yar iyo dadka waaweyn, laba qof oo waaweyn meeshaay joogaanba haddaa isku celcelis la yidhaha 5 yaryarna waa joogaan ama 6 yaryaraa joogta markii dadka laisku celceliya. dadkaana nidaamaad islaamka u dejiyo u sameeyey dadka yaryarka ahay si loo nidaamiya. dadka waaweynna shaqu u yeelay, hooyo iyo aabba midba shaqu u yeelay, guriga lagu nidaamiyo. qof walba waajibaadaa loo yeelay. waxay doonayeen ummaddii yaryareedoo badneed in hooyadii hor joogtay oo ilaalinaysay laga soo saaro oo bannaanka lagu soo tuuro oo ilmihii yaryarkaa iyo ummaddii mustaqbalkeedii soo socday inay tarbiyo weeyaan oo dayacmaan. ma u malaynaysaa naag shaqaalo ah oo lacag walba haddaad siiso oo gurigaaga adiga aada keensatay, hooyo wanaagii ay samaynaysa oo guriga ku samaynaysay iyo 10 meelood markii loo dhigo meel midna in laga heli karaayo ma u malaynaysaa? waa mustaxiil. hey haata wax suuragalaya. bal islii dhexdeeda waxaan u malaynaya inaad la socotiin kuwa ilmihii looga tagay say ula joogeen intay gowraceen dhiigga ka cabeen oo iskaga tagay oo la qabtay. waa la socotiin aan u malaynaa sanadka hore islii dhexdeeda ay ahayd. intaas la arkaayo waxaa ka badan inta kale oo ilmaha ku samaynayeen looga tagayo gacanta ku hayayeen. waxay doonayeen marka qoftii inay guriga ka soo saaraan, ayadii dulleeyaan, mustaqbalkii ummaddii dulleeyaan, usradii iyo jirataankii gurigiina ay burburiyaan ay doonayeen. waa waxa ay nooga yeerayiin oo shaydaankii horena dadka ugu yeeray. dhowr ayadood oo arrintaas ku saabsan buu ilaahay qur-aanka nooga sheegaya. haddaan wax ka soo qaadan ilaahay wuxuu leeyahay yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim. wallahu yuriidu an yatuuba calaykum wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima. ilaahay wuxuu idinla doonayaa inuu jidka xaqa idin caddeeya, sunankii rusushii iyo dadka wanaagsan ay jidkoodina idin bara,
diinta ilaahayna u soo noqotaan oo ilaahay u tawba keentaan oo daacadiisa idinku hagaajiya jidka ilaahay idin la raba sidaan weeye dadka hawaraacana waxay idin la doonayeen inaad jidka ilaahay ka leexataan wayuriidu aladiina yattabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima jidka ilaahay inaad iska baxdaan kharibantaan idin kharibaan guryihiinna kharibaan ilmihiinna kharibaan laftiinna kharibaan ay la doonayeen sidaanu ilaahay qur-aanka nagu leeyay subxaana wa tacaala tan ay wataan marka ayaddan sidaan buu ku leeyahay qur-aanka daa akhrisa sidaasuu noo sheegaya mar walba wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an falaa tattakhiduu minhu awliyaa waxay jecel yihiin siday ayaga u gaaloobeen oy diinta ugu baxeen inaad idinkana diinta ugu baxdaan ay jecel yihiin oo isku mid noqotaan dadka ayaga ah dad aas qaraabo iyo xiriir iyo raxim iyo kudayasho ka dhigataan ha ka dhiganina awliya ha ka dhiganina dadkaas walaal ha ka dhiganina naasix ha ka dhiganina muslimiinta mushkilada maanta haysata waxaa weeye cadowgoodii baa intii isu soo qurxiyey wax kale iskaga soo dhigay ayaa wuxuu leeyahay jidkii waa kana soo mara inta soo mara gacantaas qabana xagga soo mar sidaanaas horumarkaaga ku jira waraabaha mataqaanaa horta mushkilada maanta haysata waxaa weeye doon maanta ummaddii waxay saaran tahay markab gaalo ay waddo markab ninka wadan baa xukumaya mugta kabtaas rabaad ujeedina haddaad rabto badweyntaas gelina haddaad raba xeebtaas keena markab caynkaasaa maanta jiro oo dadkii muslimiinta ahayna waxaad moodaa inay iska saarmeen oo iska daba socdaan oo kabta la raba loo hogaaminaya laakiin in sha allah dadka ilaahay diintiisa garanaya ama ku baraarugsan ama rabbigooda ku xiran markabka asagaa ma raaci doonaan biidni illahi tacaala iyo doonta ayada ma raaci doonaan doon islaam wada ayay raaci doonaan biidni illahi tacaala ayado badan buu ilaahay sidaan ugu leeyahay wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum اlxaq waxay jecel yihiin kuwan gaalada oo kirishtaanka iyo yahuudi iyo ahlu kitaabka lagu sheegaya inay ma aragtay idinkoo mu'miniina intay idin arkeen bay gaalo inay idinka dhigaan oo gaalnimo idin celiyaan bay doonayeen waana diinta ilaahay idinla necab iyo khayrkay idinka xastinayeen ma ahin jahli kama ahin oo inay ayaga wanaag wadaan isuma arkaan xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq xaqi way arkaan inaa adiga qofkaan muslimka jid wanaagsan haysta way arkaan laakiin waa naceeb ay idin necab yihiin iyo cadaawadnimo ay idin qabaan bay arrintaa idinkugu samaynayeen inay waddada idinka bixiyaan bay doonayeen markaasaa waxay leeyihiin wax la yidhaahaa xurnimo sinaan maxay u wadaan yacni raggi iyo haweenka inay sinaadaan horta raggi iyo haweenka ilaahay subxaana wa tacaala haddii ay tahay yani qof walba camal buu ilaahay siiyey khaas u ah camalkiisiinu ku karaameey camalkiisiinu ajar ku siinayaan laakiin waxyaabo ay ku kala fadilan yihiin waa jiraan raggana waxbuu ku fadilan yihiin waxbay ku fadilan yihiin oo dheeraad qabaan haweenkana waxbay dheeraad qabaan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض waxbuu ku kala fadilay ilaahay subxaana wa tacaala walidaalika mas-uuliyadda ragga la saari hadday tahay mas-uuliyadda nafaqada haddii tahay maaragtay mas-uuliyadda nikaaxa haddii ay tahay yani dhinac walba mas-uuliyaddii ayagaa la saaray mas-uuliyad kalena gabdhaha ayaa la saaray waa yaro taaban doonaa walaysa adakaru kalunha haweenka iyo ragga isku mid maaha mid walba dhinac buu ilaahay marka waxay rabaan shaqadii gabdhihii ilaahay ugu talagalay oo ilaahay u diyaaribay inay ka soo saaraan oy ragga dhexdooda ku ciriiriyaanoo shaqo fidradeedii iyo dhaqankeedii iyo akhlaaqdeediiba khilaafsan ayay doonayeen inay geliyaan oy dhex geliyaan oo siyaasad ciriiri rag shaqo suuq wareeg meelo kale inay ku dhex tuuraan bay doonayeen tan waa waxa ay ayagana la doonayeen dabcan waxaa la ogyahay gabadha markay shaqayni oo meel ka shaqayni caruurna guriga ugu soo tagtay ayaga dhexdoodaba allah ka dhigay laba dhibaa haysata labada dhiboo haysata waxaa waaye dhinac
waxaa wareerinayo xanuun ku haya cunugeedii yaraayo guriga ugu soo tagtay qof shaqaale ugu soo tagtay xanuun ma ku haya mise kuma hayo shaki kuma jiro waa ku hayaa xanuun nafteedana aamin uma aha shaqadaas yar ay u kacdiyo suuqaad u socota lafteeda in dhibaato loo geysta iyo lafaheeda aamin uma aha labada dhib waa haystaan islaamka midna kuma kalifin qofta haweenta ayaga markay sidaa nala doonayiin waxaan ognahay islaamka haweenta sidii u karaamay dabcan mawduuc hadda aniga ku talagalkayga ma aha mawduuca culamada ayaa hortay ka hadlaysay laakiin saddex arrimood oo yaryar oo asaga ku saabsan baan dhinaceen ka tusinaya karaamaynta waxa weeye haweenta ayadoo hooyo ah has karaameeyey islaamka haweenta iyadoo hooyo ah ayuu islaamka karaameeyey oo nabiga uu naleeyahay sala allahu calayhi wasalam aljannatu taxta aqdaami hooyada gamadeeda ayay taallaa haddii xadiidka saxiixa noqdo haddii xadiidkaa saxiixa noqonin nabiga wuxuu naleeyahay sal alla alay slam ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaati ilaahay wuxuu idinka xarimay haweenkay hooyayaalka idin dhalay inaad ku caasisaan ilaahay waa idinka xarimay subxaana wa tacaala haweentii iyadoo hooyo ah horta waa la karaameeyey islaamka waa karaameeyey lugaheeda la dhunkan madaxeeda la dhunkan in lagu caasiyo hadal lagu soo celiyaas ilaahay reebay ayadihii aada maqlayseen oo haddayta la aqrinayo xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala hooyada uu siiyey ayaa maaragtay islaamkiisi iyadoo hooyo ah waa markay hooyata ayadoo zawjo ah oo ninkeedii hoos joogto ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka wax wanaaga kula dhaqmo waa dhici karaysaa qofta iyada oo maaragtay sidaas ah wax un maaragtay culays iyo waxyaaba inay qofka ku samayso waa dhici karaysaa wuxuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacala xataa hadday taas dhacda ma ahin in lagu tuuraayo ma aha fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allah fiihi khayran katiira haddaas wax ku nacdaan haweenka waxaa la arkaa inaas wax aada necab tihiin khayr fara badan ilaahay idinka siiyey subxaana wa tacaala ayaa dhici karaysa nabigu wuxuu leeyay sal allau alay wasalam khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahli waxaa idinkugu khayr badan kuwa ahalkiina ugu khayr badan baa idinkugu khayr badan anna waxaan ahay ninka ahalkiisa ugu khayrka badan haweentii marka iyadoo zawjo ah oo gurigii joogta ayaas ilaa islaamka karaameynaya ixtiraamaya ood sharfay ayadoo cunugtii asla shay ah oo jaahiligii duugi jireen oo nolosha ku duugi jireen ayaas islaamka karaameynaa nabigu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam man caala jaariyatayni xataa tabluqa ana wa huwa fi ljannati ka haatayni ninkii laba gabdhood dhaqaalay oo tarbiyadooda u istaaga gabdhihii asaga dhalay ama walaalihiis waxaba waa soo noqon karaan ninkii laba gabdhood ninkii kafaalo qaado oo tarbiyeeya oo dhaqaaleeya ilaa ay ka qaangaaraan oy ka kaaftoomaan ugu guuriyo wey anigi iyo asaga jannada sidaan aan ku nahay buu leeyahay islaamka marka qofka haweenta ayadoo hooyada ah husaa u karaameeyey ayadoo zawjo oo guriga joogto u karaameeyey ayadoo gabadhi aas dhashi ah ama walaasha ah ayaas karaameeyey haweenta islaamka iska daay dad kale inay mas-uuliyad nafaqo ay dusha u saaratay ayada nafteeda nafaqadeeda ninkii baa la saaray ama aabbaheed ama walaalkeed ama ninkeedii baa la saaro dusha loo saaray nafaqadii ayada lafteeda nafaqadeedii aradbaxeedii asturkii iyo gurigii kii iida lahayd waajibkuma aha iska daayey ninkeedii hadday xoolo walba haysataan waajib ku ahayn inay nafaqaysa ilmaheedii baan la lahayn nafaqay qof kale ayaan la lahayn soo nafaqay waxaa waaye jidkaanaad islaamka u jeexay oo ayadoo hooyadaa saas loo karaameeyey ayadoo cunugtii la dhalayaa saas loo karaameeyey waxaa intaas dheeraad hoy qabtaa ayadoo int sidaa loo karaameynaa wax laga raba ayan jirin oo ayada gurigii joogto oo intaan laga kafaalo qaaday ayaa dhaxalkii qaybteeda la siiyey oo markii la guursanayo mahar looga sii daray markii la guursanayo mahar looga sii daray dhaxalna la siiyey
ma jirtaa meel ay gaalada arrintan ka samaynayeen oo sidaan haweenta loo karaamaynayo wallaahi ma jirto dulliga ay naagahooda ku leeyihiin ku jiraan wax yar baan taaban doonaa wuxuu ka qaaday islaamka qofta haweenka iska daa wax kala gurigeeda inay ku dukataa la faray jamaacada masaajidka inay kusoo dukato waajibkeeda lama saarin iska day meel ka dheer jamaacada masjidka inay kusoo dukato waajibkeeda dusha lagama saarin fariido jihaad haba sheegin iyo wax lamid ah beecsharo kale iyo waxaas ha sheegin hadday haweenta ayadoo asturan inay ganacsi iyo wax lamid ah gasho ay doonayso islaamka kama reebayo si asturan oo sharaf ah islaamka kama reebayo inay u ganacsato ama wax un shaqo qabsato laakiin waajib ilaahay uguma dhigin subxaanahu wa tacaala cid mas-uuliyaddeeda la saarina ma jirto isla markaas waxaa loo sameeyey mas-uuliyadda iyada awoodi karta tan waa mas-uuliyadda ay awoodi karin bannaanka inay rag dhex taraarta oo rag dhex jiirta ooy guri dusha ka fuusha ooy xamaal dusha ku qaada oo rag xafiisyada intay u fadhida maaragtay ay eegis soo dhaweyn u noqoto oy ganacsi noqoto ma awoodi karta haweenka dhibka ka haysta wax ka mid a waan arki doonaa islaamka mas-uuliyadda ay kari karto haweenka u yeelay si sahlan iyadoo asturan dhowrsan gurigeeda joogta mas-uuliyadda ay awoodi karta ilmaha tarbiyadooda nuujintooda arrimahooda inay ka warqabto axwaashooda inay ogaato hoose waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa waladih wa mas-uulatun can raciyatiha haweenta waxaa la raaciyo mas-uul looga dhigay guriga ninkeeda iyo caruurtiisa waana la iyo xoolihiisana dabcan way soo galayn sidii riwaayaad kale ku soo arooray waana la su-aali doonaa mas-uuliyaddeedii guriga ay joogtaa waa dhowrsan tahay maxaa la yidhahaa meel iyo dhib iyo rag iyo wax jin iyo jaan waxay dhex taraaraysa ma lihin waana awooddaa shaqada ayada bal raxmadda iyo wanaagga ayada ay u qaban karta ilmaha dhaqaaleyntooda waa wax ilaahay u uumay waxaa weeye ragga hadday wax walba sameeyaan ma awoodi karaan niminka ugu yeerayeen naagaha shaqada arrintaas inaan isku baraarujinaa aheedi waxay iska qaadayeen mas-uuliyaddii ayaga saarneed ayay iska qaadayeen inay dhulka ku ridayo aan usoo noqono inay ciyaalka tarbiyeeyaan nuujintoodii xaalkooda ay ogaadaan wax ayan khaadimad u qaban karin inay qabtaan aabba qaban karin cid kale qaban karin inay guriga kaga shaqeeyaan waa dhinac waa shaqo ay gabadha qaban karta kuna asturan tahay shaqadeedii ah niyana u haysa dhibaato kaleo ka soo gaarin ay jirin mas-uuliyadda guriga maamulkiisa dhaqaalayntiisa cuntadiisa sidii maaragtay dadkan loo kala dabiri lahay cuntadooda sidii nadaafadooda iyo dharkooda iyo dhaqitaankooda looga nadaamin lahaa yacni wax kasta oo dhaqaalaha guriga iyo hoose sidii loo maamuli lahaa waa shaqada ilaahay haweenta sii inay oyna awoodda kuna asturan tahay niyana u haysa ilaahayna u uumay ay karti u leedahay niminka haweenka bannaanka ugu yeereen marka mas-uuliyaddii ayaga lahaayeen baa inay iska dhigaan doonayeen haweenkana lagalama tashanin arrinta iyada lama waraysanin inaad guriga joogtaan oo sidaan iyo fitradii iyo akhlaaqdan wanaagsan oo islaamka jideey miyaa sax ood raalli ku tihiin mise inaad ragga dhex jiirtiin hoos orodiin baad raalli ku tihiin wax lagala tashaday maa haweenka dad dana leh oo ayaga ku danaysanaya mas-uuliyadda ayaga dusha u saarneedna iska dhigaya haweenkan inay suuqa ku ugaarsadaan doonayiin diin la-aanna ummadda ku wada ayaa arrinta iyada ka shaqeeya oo barnaamijkan deji haddaan wax yar fiirina naagahooda dhibka ay qabaan iyo dulliga ay ku nool yihiin qofkii waxba aan ogeyn oo dadkan reer galbeedka ah iyo dadka lamidka ah nin inaa gacanta ishaystaanoo ama doon isla saarno doonta la badboodi biyaha kor uula boodi hoos uula degi ama badda xeebteeda isla fadhiyo afka iska dhudhunkanaayo ama maarad yacni daahirka waxaas u malaynaa markii laga soo taga ilaahay cabsidiisa iyo diin ahaan marka laga soo taga dad un markaas yacni wax un wanaagsan ku jiro laakiin imisaa shallayta oo ka dambaynaysa oo daba joogto ardaalkan naagtaan la ciyaaraya oo meesha ku dhudhunkanaayo hadda beenta u sheegaaya oo inuu jecel yahay iyo waxba u sheegaaya
ayaanta waa la totobanaa asaga duurkiisu iska aaday naaga kaluu saaxiib iskala noqdo iska daba kacay ayadana ilmay qaaday duur ugu tagay ilmihii hadday soo qaaday asaga waa ugu tagay ma yaqaan mas-uulna kama aha way xanuunsanta qoftii laba mushkila ayay hortood taagan tahay mid walba tan kale way ka daranta ma iska soo ridaa cunugii laftiisa haddayba xanuunsan tahay soo rididii waa xanuun waa qaraamo waa bale kala waa cunugun in wax un ay ka jeclaan laheed laga yaaba inay un iska heshaan laakiin ay hadda si ay u wadata garanaynin ma soo ridaa maxay samaysaa mise amar allah haddayba dhasha bal kuwa islaamka dhexdiisa ooba xoogaa xumi kale iyo waxaan kaba cararaya iska daaya haddayba dhasha keligeeda mas-uulka ah kii waa ka tagay wax shaqo isku leeyahy malik iskiga dhaqaaqay beentii aawi haddaa italle qosolki iyo waa ku jeclahay iyo wixii laisla socday afka laiska dhadhunkanayo waa dhammaatay dantiisuu raacday dhibkii ayadaas ugu tagay waxay samayni mataqaana tii hadda sheekheena ka hadlayay nin xataa nikaax magaciisa sheeganayay gabadhii waalidkeedii intii ku diiday taladii ku diiday markii ayaantoo la soo cerciyaaray ilmo dhashay iskaga tagay waxay waalidkana ku noqon karin maxaa la yidhaha dowr cidlaa sheekha ugu imaaday waa kii uu noo sheegay hadda waxay islaamka ku ceebaynayeen maanta uan ognahay inuu ninkii 4 islaamood loo ogolyahay wasaaradda cadaaladda lagu magacaabayo amerikaanka ilaan hadda adduunyada ayagaa doonta u wade waxa weeye wararkan meeshaan idinkugu sheegi doono nin walba internetka gal fiiri ilaan hadda waa wada haysatiin dadka badankooda waa haysataani balaayadii nin walba internetka galo waxyaabahaas ayaga waad arki doontaa iyo waxa ayaga fiiri qofka markay tirikoob sameeyeen qofka dhadhaxaadka ugu yar oo yacni dhadhaxaadka oo amerikaanka ah 7 naagood buu xiriir la leeyahay ma arkaysa 7 naagood buu xiriir la leeyahay islaamkana maxay ku ceebaynayeen 7 naagood islaamka 4 gabdhood oo sida sharciga ku guursaday mas-uuliyadooda ayaga korkiisa weeye haddii ilmo dhalaan haddii xaalad jirta ayagaa asagaa la murgaaya xaalad meeshii joogta waa la taagan yahay laakiin 7 naagood wax alla wixii mas-uuliyadooda qaadaan waxaas mas-uul ka yamaha asaga midoo ah magaca markay ugu ballantahaas wataa oo smaarata haddayba jirtaba waxay yidhaheen markii haddana la xisaabay 920 ragga amerikaanka ah 15 naagooda ugu yaraan ayay xiriir la leeyihiin annagana waxaynu leeyihiin 4 naagood aad maarata islaamka guursanaa waanan uga ceebaynayn war 4 naagood annaga mas-uulan ka nahay ilmahaynaan dhaqaalaysanaynaa haweenkahaynaan dhaqaalaysanaynaa dad iska warqabo noloshooda iska warqabaan nahay islaamahan yaa mas-uulka ah tan horta waa meel waxay soo qoreen websaydyada ku jiro internetyada ku jiro usarka ixsaa'iyada ugu dambeysay tirikoobki 10,000,4 famil usra 10,000,4 oo usra ilmahooda naagaha kaligooda mas-uulka ah wax oday oo mas-uul kala ma jiraan ayagaan noo yeera oo naagta muslimadda waa dhib qabtaa ay dhibkaan ka soo bixin annagana soo raacayna leeyihiin waa noo yeerayiin 10,000,4 wax sahlan maaha oo familiyaalkooda ah naagaha kaligood ayaa ilmaha mas-uulka ah waxay yidhaheen ilmaha la rida sanadkii 1 malyan ilaa 1 malyan baray u dhexaysaa ilmaha la soo rida sanadkii
leanna dhibaatadana keenaysa iyo mas-uuliyad xumadan ayaa keenaysa. waxay tiri koobeen 1973 iyo 2002 imisa u dhaxaysa muddadii u dhaxaysa waa 29 sano taqriiban ama 30 sano. 1973 qarniga naga tagay iyo 2002 dhexdooda ilmaha la soo riday naagaha Ameerikaanka soo rideen 42 milyan nus yani nus ay ka badan yihiin 42 milyan nus ay ka badan yihiin ilmaha ay soo rideen ummadooda tagtibi way halaagsameen ilaahay ha halaagay. haddii ay nolol wanaagsan jiri lahayd dhibkaas ma dhici lahay intaasoo ilmo la ridi lahay ma dhici lahaayeen wallahi ma dhicdeen. waxaa intaas ka sii daran CNN ta warar ay sheegtay waxay yidhaheen bulshadaas 65% waxay qabaan cudurro oo cudurrada rag iyo haweenka isu taga ka mid ah oon xal lahayn noloshooda xal lahayn in laga samaado. dad dhiban ma yihiin mise ma dhaha yani waa ayagaa dhibanayaa la sida dhabta 65% waxay qabaan oo haweenka badankooda ay yihiin cudurro isu tagga rag iyo haweenka laga qaada oo wax xal loo leeyahay oo caafimaad in laga helo aan rajo laga qabin ay qabaan. tanna waa cudurradii ay ku reebtay wixii ilmihii la ridayna waan ogaanay familiyaalkii ilmaha naagaha kaligood mas-uulka ka hayeenna waan ogaanay. waxay soo geliyeen waxay soo qoreen sida wasaaradda cadaaladda Ameerikaanka ay sheegtay naagaha la kufsado Ameerika dhexdeeda ah sanadkii waxay kor u dhaafaysaa bay yidhaheen 683 kun oo naagood baa sanadka la kufsadaa bay yidhaheen ayaga oo fasaadkaas intaas gaaray. wixii fasaadsanay ma ahya kuwooda fasaadsanay ka soo tag waxa la kufsanaya baarlamaanadii ku jiraan baarlamaanadii ka cabaadi oo meel ay hatta baarlamaanadii kuwaas gaaladii kala xamaa Masar baarlamaanadeeda internetka daas garatiin waa yaabaysin waxa ka jira Ciraaq haddaan oo gaalada galeen wax ka socdo markaad aragtiin naagii baarlamaanka soo galeen dhibka haysta iyo qaylada taagan ma malayn kartiin waad yaabaysan kuwii baarlamaanka ku jira la kufsanaa waxa kufsanayna waa ragga baarlamaanka waxay nooga yareen maxay markii xagee nooga yareen waxay nooga yareen magacood waxay yireen naagahaas Ameerikaanka ay sheegeen oo ah 683 kun sanadkii wax ka badan la kufsanaya waxa la ogeysiiya oo rabood laga keena 16 magaarayn inta kale waa iska qarsanayeen waxay sameeyeen garanayn waa iska qarsanayeen dhibka waa ku dhaca waana qarsanayeen wax raboodkooda la keena 16 ay gaarayeen bay yireen amwa kidin. طيب كما قرنا بوغودا هويا إن لنفقه وح كما قرنا إسلامتي سنفقه واجب إن كنت كما قرنا قبل يس إلما نفقه دي ولا شيء سنفقه دي واجب كنت قانون قوي لكم قرنا إسلام كان وحي سمي إسلام تسيدي وكرامي وانسو أرجني ورمية ما أنك إنه يرايد إسلام كحقوق كلام عن هوينك مثل حقوق مدل هوين أيدتك وجيراين مثل حقوق هوين أيدتك وجيراين يا هوينك إلا دلائمية وجيراين كودا مثل إن إمارة حقوق توضع إن يسود عيان بي وجيراين بالله عليك وحي شيئين وزارة الدفاع الأمريكانك ناقها عيدا ماذا كشقية boqolkii 78 waxay ka cabaadayeen nimanka waxa ay ku sameeyeen oo ama kufsi ah ama maartay un cadaadis ah oo lagu sameeyay ciidanka dhaxdiisa boqolkii 78 yaa baray warka wasaaradda difaaca ay leeyihiin. waxa jira runtii wax laga hadli karo ma aha ana runtii inaan hadalka dheeray ma doonaynin haweenta marka haweenta reer galbeedka markii ugu dambeysay meesha ugu dambeysay ay joogto
oo qoftii markii hore haddii ardaal walba waa un indhahaas u taagaa ay waa u yeeraa waa u qoslaa ay beenaas u sheegaa ay wax la soo maraba waxay un meel walba kusoo dhacdaba markii cumrigeeda weynaata murug ii shallayta markaas unbay iskugu imaadeen ilaa marka hore wix caqli kuma dhisneen hawo unbay ku dhisneede raggii ku daba orday waa kaa kala tageen wixii rag ahay oo ku daba yaacay oo beenta u sheegay kulli waa iskaga wada kala tageen xataa tii kuwii ayaga dhaleen uma soo noqonayeen dib dambe uguma soo noqonayeen waalidnimo uma fiirinayeen war ma dadka dhahayiin hooyada gamdaheeda ayay jannada kuugu jirtaa hooyadaa inaas wax warkeeda khilaafta sharciga kuma banaynin dhahayiin miyaa xuquuqda haweenka ilaalinaya mise qofta markii ay weynaatay intii guri cidlaa kaligeed la dhiga ama ey ay la noolaato ama ey qofka ay la noosha uu noqdo ama kaligeed guri la dhiga ama guryaha cajuusooyinka oo qof u adeegay ay jirin qof u imaadana jirin ilmo ay dhaleen iyo qof dan kale u imaanay ay jirin wixii rag ahayo shalay beenta u sheegahayn ay ka wada kala tageen miya ixtiraaman mise haweenka islaamka ixtiraaman haweenka islaamka ixtiraaman hooya ixtiraaman zawja ixtiraaman gabadha la dhalaa ixtiraaman walaasha ixtiraaman gabaray marka ma ahin in been lagu sheega ma aha waxaan jirin in lagu sheega oo dad dan leh oo adiga jirka leh inay been kuu sheegaan oo adiga ay maaragtay warka ku qurqurxiyaan ma aha dad diintaada islaamka duulaan ku ah inay been kuu sheegaan ma aha ma ahin dad familiga inay dumiyaan doonayiin oo islaamka salkiisii kusoo duuleen inay been kuu sheegaan ma aha waa in aan ogaana noqono dadka muslimiinta waa inay noqdaan dad caqli qabaan waa inay noqdaan cadowgooda goormaa annaga gaalo walaal noo noqdeen oo ixsaan noo samaynayeen su-aal yar haddaan idin weydiiye haweenka xijaaban oo guryahooda jooga xuquuqdooda waa tan loo qaylinaaye kuwa ciraaq la laynaayo oo laga gowracayo madaaficda lagu laynayo kuwa lagu laynaya maxaa la yidhaha meesha la yidhaahaa rohinga muslimiinta oo saa la yeelay may u qayliyaan bilaahi calaykum ma kuwaas ay xuquuq ka maqan yihiin oo militariga kufsanayeen intay iskugu imaadaan wax ka hadlayana maanta jirin maxaa gabdhaha islaamka yacni xijaabkan kor un bay arkeen ma gabdhaha islaamka oo xijaaban oo guryahooda joogoo dhowrsano intaana xuquuq qabaan waatay u qaylinayeen gabdhahan sidaan intaasoo dhibaato loo geysanayo ciraaq iyo maxaa la yidhaha suuriya iyo maxaa la yidhaha banima iyo dhulka ummadda islaamka gabdhahooda loo qaylinayo hadday run sheegayeen oo xuquuq haween u qaylinayeen may kuwaas wax u qabtaan ay u qayliyaan beeraalayaal way xuquuqdeenna inay ku tuntaan ay doonayeen wax khayr ahna nalama rabaan waa inaan ogaano dad caqli qaban noqono culimmadeenaan ku wareejinaya barnaamijka baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allah idin barakeeye calaykum asalaam waraxmat ullah جزاك الله خيرا خير الجزاء محمد عثمان علسو حقيقة شيخها وناجيي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله وقشو دنبقيسا يا دنبق والدينتي با الله هدايو أننا إلهي سبحانه وتعالى هل كان نقوم قضيو موضوع أو كهذ لينا وموضوع دقيق أو أساسي أو لوبهنا هويو يا قبري رمانتود بخصية مالين دوي مال حفلة كقيب قلي بقبري قبي في صوماليا oo hooyada ku saabsan bay soo jeedisay ansaaru sunna la xirayay marka bandhigiiba waxaa ka mid noqotay gabar Soomaaliyeed oo kalaasiyadan dhexe dhigata gabay af Soomaaliya hooyo ku amaantay xaqiiqatan wixii meesha joogay oohin iyo wax bay isku dareen maxaa yeelay hooyadu meel fog bay nooga taal sida daraadeed ilaahay hooyooyinkeen dambigooda Allah dhaafo Fudayl ibn Iyaad wuxuu yiri ninbu wuxuu ku yiri kam ataa calayka meeqa sanaad jirtaa ninkii baa jawaabay wuxuu yiri 60 sana 60 jir baan ahay qaala lahu wuxuu ku yiri منذ 60 سنة تصير إلى ربك يوشك أن تصل 60 سنة بعد ربك أسوس عتي مردونا وضل كل ميساء ومعنى هذو يهي
rabbigaa waxaad kala hortegi lahayd diyaarso. gabarh kastoo inaga mida iyo walaal kasta iyo hooyo kasta walaa shaka walaa rayba inay rabbi hor istaagayso. rabbi maxay la hortegaysaa? ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. rabbi hor istaaggii walaal waxaad ooga baxsanaysaa adoo sita credit wanaagsan, kayd wanaagsan adoo haysta. 2 gabdhood xijaab u xiray, 2 gabdhood xijaabka u iibiyey, 2 gabdhood maxay ahaydayay oo shiishad cabbi jiray aad dacwo gaarsiisay, dariskaagood ka warhaysay, dugsiga u soo jiiday, waxaad rabbi la hortegi lahayd baa la rabaa. abu hurayra rag buu camalkooda yahay. abu hurayra tufayl ibnu camrin iddawsi baa abu hurayra hanuuniyey oo ilaahay hidaayada ugu dhiibay. abu hurayrana wuxuu qabtay waa taqaanaan, wuxuu ka mid yahay camalka uu qabtay tufayl ibnu camrin iddawsi. waxaa laga yaabaa 2 gabdhood iyo gabar aad dugsiga keentay oo xijaabka u xirtay in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta ay jannado 7 samaawaadka ka gasho inay kor kuu jiidato baa laga yaabaa. sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsan oo idinka tahniyeynayaa xijaabka iyo anshaxa iyo quruxda idinka muuqata iyo asturka wanaagsan. maalmo dhoweed oo dhan wadnaha iyo beerka ay xanuunaya markaan arkay hablihii Soomaaliyeed oo maryihii dhigay, laakiin weli rajaa jirta. marka waxaan oran lahaa ilaahay khayr ha idin siiye, bal inta annagana la soo weerari lahaa aan iyaga bal weeraro. fanaaniin sodomeeyo dhan ayaa inaga adkaan raba. naaga fanaaniin oo fusaaqa oo sodomeeyo dhan oo xataa 50 dhannayn oo heblaayeba leh baa intay isqaawiyeen oo timihii bannaanka dhigeen oo horaadadii garaaceen baa waxaa raacay hablaheennii oo dhan raacay. marka intaanaa tiro la egtihiin, intaan baa tiro la egtihiin, yaan la idinka adkaan oo fusaaqdu yaan idinka adkaan.